xaflad ballaaran oo lagu taageerayo musharaxnimada jagada gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye mudane xasan maxamed cali gaafadhi ayaa maanta lagu qabtay hotel doore ee magaalada Burco. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada gobolka, cuqaal waxgarad salaadiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan, waxaana ay dhamaantoodba dadkaasi soo dhaweeyeen musharaxnimada jagada gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ee uu taagan yahay mudane xasan maxamed cali gaafadhi. Hadaladoodina waxaa ka mid ahaa أنا كفر صنعي ونصور ويننا وحلايا هاي صدح الرماد أيها هاي حكومة من بالي هاي حزب الكلية من بالي هاي حسن من بالي هاي حكومة وحلايا هاي هوا ترتمو ترتن كفرقين تقدايا يوم يلين علينا كاقايب الواحد حزب أسوأ قوتا حسن محمد علي بوانين كرتية وود يا غامبل أول كلام علينا أنا كارتنا هذا ونهاية وبينها كبر كبرين si kastaba ha ahaatee munaasabadani ballaaran ee lagu taageerayay mudane xasan maxamed cali gaafadhi oo hore uu ahaa gudoomiyihii xisbiga Hareer Rays ayaa ku soo beegmaysa xilli uu dhawaanta shaaciyay mudane gaafadhi inuu taagan yahay una tartamayo jagada gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye. Xabiib Saciid Xasan, shabakada caalamiga ee Qorlugud News, magaalada Burco.